la wada socono waxa ay saameeyay oo degmada aad iyo aad si xawli aad moodaa inuu soconayo xanuunkii COVID-19 ama aan oran karno ma aha calaamadihiisa iyo sida uu u fidayo ama sida uu xulaynayo COVID-19 maahe waa xanuunkii kale dunidu ay ka qaylinaysa dhimashadu sida ay noo sheegeen culimada gacanta ku haysa hal maqbaro ama hal meel oo wax lagu aaso maaha goobaha burco oo dhan maaha hal goob oo kamid ah goobta ugu weyn bishii horeyna dhaaftay February waxa lagu aasay 103 qof baa lagu aasay 103 qof waxa dheer cidii tuulooyinka lagu aasay iyo cidii xabaalaha kale magaalada oo ilaa 5-6 meelood oo kale magaalada wax lagaga aaso lagu aasina way dheeri markaan barbar dhigno maanta marka laga saaray 26 casho ee hore tirada dhimashada waxaan oran karnaa waxay kor u kacday ma yuqaarib 40% ayay kor u kacday shalayto oo bishu ay 26 ahayd dhimashada dadka dhintay ee lagu aasay xabaalaha weyn ee burco ee dhinaca koonfurta ka xiga magaalada xabaalihii hore dahabshil iibiye ku dhow ee la yaqaano dadka ku dhintay 26 casho magaalada ee xabaalaha lagu aasay kuma jiraan xabaalaha kale ama tuulooyinka kuwa lagu aasay kuma jiraan waa 142 ruux weey 142 qof waxaan rumaysanahay dadka inta badan ama sida la og yahay inta badan inay u dhinteen xanuunkan imika inagu habsaday inahayaga waxaan soo bandhigaynaa xanuunku inuu meel halis ay nala marayo si halisana uu u fidayo si dhaqsaana uu xudilay dadka qaar oo waayeelkii magaalada 20 daqiiqo intii uu ku dhacay ee laga dareemay iyo intii uu dhintay 20 daqiiqo gudahood buu ku dilay waxaan leenahay weynaha reer burco anagoo si naxariis iyo maamuus leh ula hadlayna xanuunkan dhaqaatiirtu talooyinka ay nasiiyeen aan qaadan culimadayada gobolka Togdheer ama degmada Burco masaajida gacanta ku haysa si sharaf iyo maamuus leh waxaan ugu soo jeedinay inay nagala qayb qaataan xanuunkaas ay ogyihiin dadka maalin walba ay ku tukanayaan tirada ay leeyihiin dadana ay war ka hayaan sidii loola tacaali lahaa inay wax nagala qabtaan oo laba xaalaba ay nagu taageeraan manaabirta iyo jimcayaasha iyo wacdiyada iyo casharada ay dhigayaan intaba xanuunka qatartiisa iyo maanta burco ahaan halku inala marayo inay ka sheegaan midda labaad masaajidada ee dadka ku tukanaya in la kala fogeeyo meelaha la isugu imanayo marka la gelayana ama masaajidadu ay kamid yihiin ama dhulka wax lagu dhigayaa ay kamid yihiin ama dhulka duruusta laga akhriyaa ay kamid yihiin in qof kasta face mask iska sito distance ama fogaanta loo ay marka dhaqaatiirtu inoo tilmaantayna la qaado